maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee magaceeda marka loo soo gaabiyo loo yaqaan ICJ ayaa gaashaanka u doortay dalab kaga yimid dalka Kenya ee doonayay in dib loo dhigo dacwadda badda u dhaxaysa Soomaaliya. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo dhaweysay go'aanka ka soo baxay maxkamadda. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay dhageysiga dacwaddaasi. munaasabadda uga faa'iideysto in aan shacweynaha Soomaaliyeed ku wargeliyo in maxkamadda cadaaladda adduunka ay go'aan kama dambaysta shalay galab ka gaadhay dhageysiga dacwaddii badda ee u dhaxaysay Soomaaliya iyo Kenya. dacwaddaas oo gudbinihii qoraalaha iyo dokumentiyada hore ay u dhamaatay 2018 December waxa ay muddaba u madlanayd in la dhageysto doodaha afeed oo luqadda af Ingiriisiga lagu yiraahdo oral hearing in dhinacyadu maxkamadda hordeeda ay ka soo jeediyaan. maxkamaddu go'aan waxa ay shalay ku gaadhay dhageysigii dacwadda oo horena ay u muddeysay, hase yeeshee Kenya ay codsatay in dib loo dhigo, inaan la aqbalahaynin in dib loo dhigo mar dambe. sidaa daraadeed dhinacyadu ay u soo diyaar garoobaan 15 ilaa 19 bisha March ee inagu soo aadan ama Maarso dadka qaarba sidoo u yaqaan 2021 in la dhageysto dhinacyada habka virtualka ama muuqaalka fogaal aragga ah, iyo hadday suurto gasho habka dhowr qof in ay kasoo qaybgeli karaan dhinacyada. almuhiim dacwadda dhageysigeedii insha Allahu 15 ilaa 19 Maarso oo sanadkan 2021 ayaa ay hirgelaysaa. maxkamadduna go'aamisay naguna warkelisay dhinacyada dhammaantood. waxaan shacweynaha Soomaaliyeed u sheegayaa annagoo ku kalsoon Ilaahay, ku kalsoon taageerada iyo garab istaaga mar walba dowladda Soomaaliya la barbar taagan tihiin in aynu ku metelno danta ummadda Soomaaliyeed, xaq iyo cadaaladna ku helno doodeenna iyo dacwadeenna, kuna kalsoon dhexdhexaadnimada maxkamadda cadaaladda adduunka. in aad noo soo ducaysaan in si xaq ah ay noogu dhamaato dacwaddaasi. waxaan u hambalyeynaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo 4 sanadood oo run ahaantii uu xilka hayay, habeen iyo dharaar heegan u ahaa, la socday, taageero dhinac walba ahna, niyad iyo moral iyo aqoon iyo afkaar iyo talo wax kasta oo uu ku biirin karo la barbar taagnaa khubarada sharciga iyo mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ee gacanta dacwaddan ku haya. waxaan leeyahay dhammaanteen haddaan Soomaalinahay guul baan inoo rajaynayaa, waana ku han weynahay insha Allah in cadaalad xaq ah ay ku dhamaan doonto dacwaddan. dacwadda badda ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ayaa marar badan dowladda Kenya ay codsatay in dib loo dhigo dacwaddaasi. lama oga sababta rasmiga ah ee dowladda Kenya warabta. dowladda Soomaaliya ayaa soo dhaweysay go'aankan in dib aan loo dhigin go'aanka oo dhageysigeeda u dhici doona bisha Maarso ee soo socota. wariye Cabdinaasir Maxamed Xaaji Axmed Cabdinaasir Qujufa, dulqaad media, wariye madax bannaan, freelance journalist and photographer.